الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية الصوماليلان مدن موسى بيحي عبدي xubnaha golaha wasiirada iyo musharaxa dawladda waxayna u yar baran ereey badan oo in la xafidsiyo halkan waxa jooga isna musharaxii madaxweyne ku xigeenka xisbiga kulmiye maxamed saajin baa halkan jooga isna wasiirkana oo isna in kulba la soo qaadahaydo saajin horta waad cusubtay maanta bilow kuwa shalay baa la sheegay in maanta aniga bilaabo kaasi ka bilaabmaysaa xubnaha golaha wasiirada meeyirka magaalada Sheekh meeyirka magaalada Berbera xildhibaanada heer qaran saraakiisha dawladda meesha fadhiyo oo dhan halkaana Faadimo Sheekh iga salaamayso idoo salaamaya salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaat bada saabka gobolka Cali Case de horta aniga waxa la soo kiciyay inaan idinka fariin idin sheego fariintaasina waxa weeyaan de masaajid baan horta baayacay kursigan aan doonayo albaabka madaxweynaha laga galo meel dhay lagu gala maaha waa la dhacaa marka hore markaas la soo fuula hadana la dhacaa dawaan tartamay haddaan tartamayna Cabdi Casiis oo xisbiga kulmiye ama maalmayga soo horeeyay ama aan isku marnimid oo ku faraxsanahay inuu waliba helo ayaa horta iga helo walaalkaya waxaan halka rabaa inaan idinka cadeeyo wakaa madaxweyne Muuse Biixi hor fadhiye madaxweyne Muuse iyo Maxamed Kaahin baani Cabdi Casiis xisbiga soo horeeyay ilan taariikhda waa la sheegayo waxba lama qarqariye kulmiye anigu isagoo ibra ayaa siiraaya gurigayga Umar Sheekh Cabdillah Fiyoka kala fadhiyaan ku shirnay anagoo dhuumanayno Fiyoka markaas aanu balaan yar iyo wax la yar qorqornay Cabdi Cali Jaamac ninka la yiraahdo oo markaa xildhibaanadii golaha deegaanka ugu horeeyay ayaa markaa soo galay golihii deegaanka markaa xisbiga kulmiye waynu sii ahaanaynaa waynu la shaqaynaynaa waliba shaqadii aan qaban jiray shallaabkeed baan qabanayaa qofkii aniga istaageersanaa ee ila socday de haduu jeclaa aniga Ciise Muuse nimo gobolnimo waar anu kulmiyaanahay kulmiyaan si ahaanaya kulmiyaan joogaya qofkii wax kala doonayay la kulmiya wax noo diiday kulmiya wax noo bahlayowna daawal bu xirbaad ka doontay iska mar taas waa qodob gaar ah aniga laakiin cid igu marmarsiyoona soo oranaysa inaan keeni baa la xumeeyay war cidna ima xumeyn waan tartamay haday cid waxay taraysana ilan wax rabaan garnaqsanaya haday cid waxay tarayso dhaqaale igu taageeri lahayd way soo wada raaci lahaayeen way la loobin gareyn lahaayeen war keligii baa grif lahaa iyo asxaabtayda ilaahay dartiye heedaha ila waa la garamaaye asxaabtayda hadii xiliinaad bar warsataan wallahi baad sheegaysaan 500 baynu keeni lahayd marka taasina waa siyaasad kulmiye oo xisbi dimuqraadiya madaxweyne Muuse waa reer Sheekh Maxamed Kaahin waa reer Sheekh madaxweyne Siiraanyo waa reer Sheekh soo inta maaha taariikhdii inaga xumaanine xisbiga kulmiye inuu nahay waa xisbigii horumarka waa xisbigii isbedelka waa xisbigii mataqaana muxuu ahaa keenay dhalinyarada wadanka oo dhan inay kaalin ka qaataan ilaahayna nabad hayna siiyo ilaahayna wadanka inoo hagaajiyo xaruntan aynu maan joognaa waa xaruntii Soomaha waxbarashada iyo horumarka marka waxba yaan social media ina laga maamulno cid wax inoo diidayna ma jirto cid heshayna waa cideeni Cabdi Casiisna waynu la shaqaynaynaa Maxamed Kaahin oo isagu laba jeerba ah ماشي وأيها سجن نوصل فلسطيني بربروا أيون هالقصة إنه كحيننا عدكي أيون مسبحي وسو سارني شلاب كيدنا هلا سيد يرجعوه أيون دي يرجعونه فرين تيدواتها إن مركز سدا له هاي ده عيد جار مركز له عيسى موسى عيدها كله هيك حماننا يجا يسوع عنا يقول ماشي محاعد كينا لو جه ليو فرين تيجا إنه شيء جاي ضد كلام ولا لا هاي ده متقارنا أنت هاي اللي يرفع سنة هذا اللفت يدوه حقيقة حمار هو قاعدين ده waayo nin $100 soo daray oo marka maanta ay oranayay waxbaan ku tarnay waxaan ku tarnay ma de ma taqaanaa muxuu ahaa maaha labada Cabdi Casiis reerkooda lacag soo siiyay asxaabtayda oo la campaign garee assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh